الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إلهي سبحانه وتعالى ayaanu mahad celinaynaa na hanuuniyey oo muslimiin naga dhigay na garansiiyey cadowgeenna iyo colkeenna noona sahlay inaan ka intiqaamsanno oon ka aarsanno gaalada nagu soo xadgudubtay. ummadda muslimka ah ee ku nool Soomaaliya waxaa u heshiiyey oo u shirkoobay kuna talagalay inay baabi'iyaan diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda intaba dowladaha adduunka ka jira ee gaalada ah in badan oo ka mid ah haba ugu horeeyaano gaalada lagu magacaabo NATO oo safka hore ka ah duulaanka lagu hayo ummadda muslimiinta ee Soomaaliya. gaaladaas NATO oo runtii ku soo hubaysay ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ah cadow shaqaystayaal aad u fara badan oo Afrikaan noocyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliya deegaan ahaan ugu dhow, iyadoo hadafkay ujeedkuna uu yahay in lagu banaysto dalka iyo dadka iyo khayraadka ummadda muslimiinta ay leeyihiin in lagu banaysto. dowladaha runtii safka hore ee la soo geliyey isla markaana marti gelinayay kumanaan iyo kumanaan ka mid ah ciidamada gaalada ah ee NATO ee weerarka ku ahaa dalkeena waxaa ka mid ahaa dowladda Jabuuti oo runtii dad muslimiina ay degan yihiin laakiin ay haystaan niman ilaahay diintiisa ka ridoobay ku saf noqday gaalada u cadaadiya oo u duleeya ummadda muslimiinta dalka ku nool gaalada u duleeya. haddaba mujaahidiinta maadaama la dulmiyey oo dalkoodii lagu soo duulay, degaanadoodii lagu soo duulay, shareecadoodii in la dusho la rabo, cidda loo adeegsadaana ay tahay waddamada Afrikaanta ah, cidda adeegsadana ay tahay NATO, waxay muddo dheer runtii aad u raadinayeen meel ay ku kulansan yihiin gaalada NATO isla markaana xanuujin karta waddamada Afrikaanta ah ee lagu soo hubeeyey ummadda muslimka ah Soomaaliya ku nool. taa mujaahidiinta iyagoo taa ka duulaya ayay 26kii bishii 7 1435 hijriga waxaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala u suurta geliyey inay xamlo weerar ku qaadaan meel ay ku caweynayeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan gaalada NATO oo waxa weeye hotel ay ku tumanayeen. hotelkaas waxa isugu yimaada waxay ahaayeen oo kaliya gaalada NATO iyaga ku caweyn jiray. halka ay mujaahidiintu waxay ka sameeyeen dhowr qarax oo xigta oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala gaalo badan uu ku asiibay. gaalada meesha joogtay ee caweynaysay waxay ka koobnaayeen 5 wadan ay ka koobnaayeen. kow waxaa ka ahaa waddanka Faransiiska, waddanka labaad wuxuu ahaa Mareykan, waddanka saddexaadna waxa weeye Jarmalka, waddanka afraadna waxa weeye Holland, waddanka shanaadna wuxuu ahaa Belgium. 5 wadan oo dhammaantood ciidamo fara badan ay ka joogaan Jabuuti, ciidankooda ayaa hotelka ku caweynayay kuna tumanayay. gaalada khasaare halka ku gaaray waxa weeye 35 isugu jirta wax dhintay iyo wax dhaawac. 35 waxay ka koobnaayeen wadamada iyaga ah ee aan soo sheegnay, qaarba in hawle ekaato, laakiin waxaa ugu badnaa waddanka Faransiiska. waxaana ciidamada halka ku dhintay ka mid ahaa mujaahidiinta hadafkoodana ahaa 2 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Faransiiska oo iyaguna halka ku dhintay. ilaahayna aan ku mahad celinayno dhaafidda uu dhaafiyey muslimiinta. taargetka ugu xooga badan ee mujaahidiintu ay beegsanayeen waa Faransiiska isaga ah. sababta ay u beegsanayeen maxay tahay? Faransiiska iyadoo oo NATO dhan ay ummadda Soomaaliyeed muslimiinta dhib ku hayso, Faransiisku asaguna taarget gooniya ayuu mujaahidiintu si ahaa. sababtuna waxay tahay dhibaatada baahsan ee uu ku hayo dhammaan muslimiinta Afrika oo dhan, khaasatan xasuuq iyo dhibku ka geystay
waddanka Afrikada dhexe oo intaasoo malaayiin ah lagu xasuuqayay intuu ka dhigay sacabooley muslimiintii inuu haddana u gacan qabtay nimankii gaalada ahaa ee nasaarada ahaa ee ku xulufada ahaa ee waddankaa joogay inuu u gacan qabtay iyadoo laga dhigay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa dalka waddanka Afrikada dhexe wax la dilay iyo wax la qaxiyay oo tusaale ay ku filan tahay caasimadda Bangkok kaliya oo ay ku noolaayeen wax ka badan 100,000 oo muslimiina in maanta la cadeynayo oo saxaabada laga sheegayo in muslimiinta maanta joogta aysan dhamayn kun inaysan dhamayn sababtu maxay tahay inna waa la laayay inna waa la qaxiyay waa la barakiciyay waxa ka shaqeeyayna waxa weeye Faransiiska ayaa ka shaqeeyay waxay ogtiin Faransiisku dibka uu ku haayo waddanka Soomaaliya khayraadkiisa la boobayo murtadiinta Djibouti oo ku soo hubayo waddanka Soomaaliyeed ujeedkeeda uu yahay in muslimiinta la tirtiro sidii kuwa Afrikada dhexe loo tirtiray in loo tirtiro sidaa daraadeed ayaa mujaahidiintu waxay si gooniya u beegsanayeen Faransiiska gaalada dhexe waxaan leenahay inaad dalkeena baabi'isaan oo calo shaqaysiga ku soo xareysaan oo khayraadkiisa boobtaan oo badiya bari aad qaybsataan haddana aad ku caweysaan hoteelo iyo meel aad ku tumataan raaxaysataan ma imaanayso mana dhacayso maxay dad baanu nahay iimaanaan leenahay waxa weeye raganima nagu jirta ma suurtoobayso in baashaal ku jirtaan oo raaxaysataan annagana aad nagumaysataan oo dalkeena iyo dadkeena aad baabi'isaan wax dhacaaya maahan fariina waa haysataan haddii dhagihiinu wax maqli waayeen daayihiina idinku tusinay dhiiggiina idinku tusinay waxaan leenahay Ismaaciil Cumar Geele waxaad sheegtay wadafkaada ka gartay in aad la dagaalamayso in ilaahay sharcigiisa adduunkan lagu xukumo khaasatan Afrika ay lagu dhaqo inaad la dagaalamayso in khilaafa islaamiya ay dib u soo laabato inaad la dagaalamayso waxaad ogaataa ilaahay diintiisa waa ka weyn tahay wax Ismaaciil Cumar Geele iyo wax lamida waxay gacanta saaraan ama ay cadaadiyaan waa ka weyn tahay ilaahay baana noo ballan qaaday tabaaraka wa tacaala bilisaani rasuuli in ay soo noqon doonto khilaafadii islaamku ay soo noqon doonto bal adduunkan uusan baabaynin oo qiyaama aysan dhacaynin ilaa waxa weeye khilaafadu ay ka taliso adduunka ay ka taliso cadligu uu saameeyo adduunka oo dhan muslimiintuna adduunka ay saydareeyaan waxa weeye nabi maxamed carabkiisa ilaahay noogu ballan qaaday adiguna ilaahay tabaaraka wa tacaala lama dagaalami kartid ilaahay tabaaraka wa tacaala cid ka celin karta waxa uu doono ma jirto laa mucaqiba lixukmi cid xukunka ilaahay tabaaraka wa tacaala la cirbiso oo waxa way ka daba imaan karto wax ka dhigi kartaa ma jirto war ballanqaad rabbi waxaan rajaynaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kusoo qaban doono sida uu dhaqsiyaha badan uu kaaga qaban doono diintiisa uu kaaga qaban doono ummadiisana uu kaaga qaban doono meesha la isku haayahay waa xaruntaadii waa madaxtooyadaadii waxa weeye waa meeshii aad gaalada aad ugu khidmay aad leeday insha Allah ma dhici doonto inaad dalka muslimiinta ay leedahay Djibouti inaad gaalo ugu khidmaysaa insha Allah qalbigaada waxba aysan ku weynaanin ma dhici doonto insha Allah tacaala dhulkiisa iyo dadkiisa ilaah baa ilaashanay tabaaraka wa tacaala hamoodin kumanaanka ciidanka ee gaaladu leedahay in ilaahay ka hortaagi karaan boqolaal adiga ka jabaabirsan ka dulmi badan ayaa ilaahay dhulkan dhaafiyay aawa fircoon aaway qaaruun aaway haamaan aaway kuwii kula midka ahaa waxa way qadaafi iyo kuwii la midka ahaa intay ka baxeen ku tusaale qaado maalin ilaahay kusoo qabto ilaahay kusoo qabana marka intay goor tahay waxa ku roon adoon ilaahay la dagaalami karin ilaahay uu tooba keeno tabaaraka wa tacaala macnaheena shacabka Djibouti ee muslimiinta wuxuu idin geliyay ninkan isaga ah ee daaquudka ah ee qooqaya kibray ee gaalnimadu madaxa bartay oo aad maqlayseen iclaamka aad ka maqlayseen inuu sheeganayo inuu la dagaalamayo in khilaafa islaamiya ay dib u soo noqoto in shariicada ilaahay koonka lagu dhaw la dagaalamayo ninka isaga runtii wuxuu idin geliyay xabsi kor ka furan ayuu idin geliyay wuxuu ka dhigay dalkiini dhammaantiis xero military oo NATO ay leedahay ayuu ka wada dhigay kuwaasoo runtii dhaqaalihiinii fasahaadiyey kuwaasoo gabdhihiinii fasahaadiyey wiilashiinii fasahaadiyey waxa weeye horumar dhinac kasta idiin diiday diintiinii caqiidadiinii baabi'iyey khamri iyo waxa weeye khansiir mooyaane wax kale aan keenaynin mana aha runtii wax dad muslimiina ay u dulqaataan ama ay waxa weeye nin qiiro diineed ay ku jirto u dulqaato marna ma ahan
علينا ولا ليال إلهي تبارك وتعالى ما ننت قيامه وإذا ويدين دونان إذنكو أود أوله ووحوية قال الله ما شاد جوكته إن رالي كل نغطان ودينت إلهي الدمس رالي كل نغطان وأكثر ستان بل ويلشي إنه أي سوء آذان بيشي خلافات الإسلام كل أولاد دقال أي سكتان وتفير ستان إخواني وحوية ما ننت قيامته ولا ويدينه إن وحوية ديارها إسي بقول يصدن يكون الدرانيس كسو كعا جبوتي كسو كعا من ضد مسلمين وأبرياء أي لايان معني كسا ويكون لايان يمن ويكون لايان صوماليا ويكون لايان محايا ذي مالك لو أدونك كاملة إن أكون قناعسانتين أطفير سنة يدنا واحد تبارك وتعالى قيامه يويدين أيوه انت waxaa dheer dulliga idinka idin haysta rafaadka aad ku jirtaan dhibaatada idin haysata iyo gaajada iyo faqriga idin haysta gaaladuna halka kor idinka fiirsanayso haddii xuquuq insaan iyo wax la sheegay ay jirto maxay idinkaga qaban waayeen waxa weeye gaalka dhibka idinku haaya ee maalin kasta aad mudaaharaadaysaan haddana idinku fiirsanayo waxay tusinaysaa ujeedku waxa weeye ciddii muslim xayaadinaysa gaala waxa weeye cidda ay rabto ciddii islaam sheegtana muslim sheegtana waa cidda argagixisada waxaan leeyahay walaalayaal tusaale ayaa idinkugu filan waddanka dariska ka dhinaca kale Soomaaliya kala ah ee Kenya markii uu ku soo xadgudbay dalkeena dhibaatada ay samaantay dhaqaalahoodii yaa baaba'ay dalxiiskoodii yaa baaba'ay amnigoodii yaa baaba'ay idinkana maanta waxa weeye waa fariintii ugu horeysay ku cibra qaataan leenahay insha allahu tacaala mujaahidiintuna waxay diyaar u yihiin ciddii waxa weeye gaalka meesha ka ridaysa inay gurmad iyo garab ay siiyaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala in waxa weeye ay ku gacan siiyaan in gaalada meesha ay ka xiyaan maxaa yeelay muslimiin way dadku Djibouti muslimiin oo ictiraafsanahay anaguna muslimiin nahay waxa naga dhaxeeya tacaawun iyo waxa walaalnimo iyo ehelnimo ayaa naga dhaxaysa laakiin waxa way waxa la rabaa maanta in waxa soo la tirtiro la baabi'iyo inaad idinkuna qosashaan dadka muslimiinta Soomaaliya kuna la laayo sidaas la rabaa dadka shacabka Djibouti walaalayaal waa naga waxa way waxay naga tahay waana walaalnimo naga tahay ehelnimo naga tahay waxay naga tahay islaamnimo naga tahay wiilashiina caysta murtadkan meesha jooga iska fujiya iska rida على مجاهدين شغلها قبطي جزاكم الله خير إلهي تبارك وتعالى أجركين هوينيو إلهي تبارك وتعالى عمليات كالوكسي بركة بضلنا إلهي يقول تبارك وتعالى اللهم سدد رأي المجاهدين ورميهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين